xasan sheekh iyo abiy oo ku kulmaya Shiinaha. haddaba maxay tahay safarka madaxweyne xasan uu ku tagay Beijing? xogta laba qodob oo sabab u ahaa kala tagii Fahad iyo Farmaajo iyo wararkii ugu dambeeyay xildhibaanada Somaliland oo ilkaha iska daadiyay ayaan warkan ku falanqeyn doonaa. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran. aynu ku horeynay xasan sheekh maxamuud iyo abiy ayaa ku kulmaya Shiinaha xilli shaki badan uu muujiyay safar madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi China. xogaha waxa ay muujinayaan in ay suuragal tahay is-aragga labada hogaamiye ee Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo dhexaadin iyo garwadeen ay ka yihiin dowlado ay ugu horeyso Djibouti sida xogta la helay ay muujinayso. haddaba aan eegno xogta safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalka Shiinaha iyo waxa uu ku qotomo. madaxweyne xasan sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. madaxweyne xasan iyo wafdi uu horkacayo ayaa halkaasi uga qaybgali doona shir madaxeedka Afrika iyo Shiinaha oo ka furmaya magaalada Beijing ee dalkaasi. shirkan oo muhiimad weyn u leh xiriirka labada dhinac ayaa lagu gorfayn doonaa iskaashiga dhinacyada horumarinta, kaabayaasha dhaqaalaha, ganacsiga, warshadaha, caafimaadka iyo amniga. madaxweyne xasan ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu kulamo gooni la qaato madaxda sare ee dowladda Shiinaha iyo xubnaha kale ee qaybta ka shirkan. Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir diblomaasiyadeed oo wanaagsan, iyada oo Beijing ay siiso xukuumadda Muqdisho taageero dhowr jiha ah, wuxuuna shirkan qayb muhiim ah ka qaadan doonaa iskaashiga labada wadan. si kastaba, madaxweyne xasan sheekh ayaa inta uu halkaasi ku sugan yahay la xaqiijiyay in arinta Itoobiya iyo Soomaaliya la soo hadal qaadi doono, iyadoo Itoobiya ee loo ballan qaaday in la siin doono deked dalka Djibouti ku taala, kana tanaasusho gebi ahaanba ee arinta ku aadan in Soomaaliya ay ka hesho deked. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo xubno kale ayaa la xaqiijiyay inay ka shaqeynayaan is-aragga abiy iyo madaxweyne xasan, iyadoo xogaha ay muujinayaan in arintan ay khiyaano qaran ku noqon doonto madaxweyne xasan haddii uu qaabilo abiy, iyadoo laga qariyay shacabka Soomaaliyeed. balse haddii madaxweyne xasan gobonimada iyo sidoo kale difaaca dalka ku sii adkeysto, wuxuu mutaysan doonaa wadaniyad iyo taariikhda in baal dahab uu ka geli doono. haddaba Djibouti ayaa dhawaan sheegtay in Itoobiya usoo bandhigtay hindise cusub oo xallin kara baahida Itoobiya qabto ee helista marin biyood, laguna xallin karo khilaaf ka taagan gobolka oo haddii uu gacan ka hadal isu bedelo saameyn kara guud ahaan dalalka gobolka. haddaba arintan waxay ka dhigan tahay in Ismaaciil Cumar Geelle sida horeba uu sheegay wasiirkiisa arrimaha dibadda Maxamuud in ay wada hadli doonaan madaxda Soomaaliya, Djibouti iyo Itoobiya si arinta badda iyo xiisada labada wadan hoos loogu dhigo. sidoo kale Djibouti waxay u muuqataa in mar kale ay u loogeyso Soomaaliya Itoobiya, iyadoo markaas rabta in damaceeda badda ay u hirgeliso si markaas ay usoo fido badeena inteeda kale. wasiir Maxamuud ayaa rajo badan ka muujiyay in khilaafka labada dal ee wada hadal lagu dhameyn karo. madaxda labada dal haddii ay wada fadhiistaan oo wax badan falanqeeyaan, waxaan aaminsanahay in wax kasta diblomaasiyad lagu dhameyn karo, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti. sidoo kale wasiirka hadalkiisa cadeeye ayaa sheegay in Itoobiyaanku ay u baahan yihiin deked ay wax kala soo degaan, inkastoo baahida dekedda ay u baahan yihiin ay badan tahay. haddana wuxuu sheegay in deked ganacsi ay siinayaan haddii xal loogu helayo khilaafka labada wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya. wasiirku wuxuu sheegay in Itoobiya ay la wadaageen in dekedan ay uga qayb qaadanayaan xal u helidda khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya ee salka ku haya dekedaha, wuxuuna sheegay in ay ka warsugayaan jawaabta Itoobiya. waxaan Itoobiya u ogolnahay saldhig military kuma jiro, ganacsiga bulshada inuu ka faa'iideysto ayaan ugu talagalnay, intaas wax dheer ma lahan. waana la wadaagnay mas'uuliyiinta ugu waaweyn dalkaasi, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha, waana ka sugaynaa jawaab, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti. waxaana mar kale ka dhigan tahay in loo loogayo Soomaaliya iyo Itoobiya, oo Djibouti hadalkeeda shaki weyn uu ku abuuray shacabka Soomaaliyeed. intaas aan uga baxo arrimaha Itoobiya iyo Soomaaliya iyo xiisada ka taagan, markana aan eegno xogta laba qodob oo sabab weyn u ahayd kala tagii nabad iyo nolol, si gaara Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. waxaana xogahan ay muujinayaan in labada oday dana siyaasadeed iyo xaalad adag ay kala geysay, balse wadajirkoodu uu wanaag u ahaa taageerayaasha xisbigooda. kadib shaacintii Fahad Yaasiin ee kala tagga saaxiibkiisii Farmaajo,
waxaynu baaris ku ogaanay in kala gurashada madaxweynihii hore ee Farmaajo iyo isaga salka ay ku hayso laba arrimood oo xasaasi ah, kuwaas oo kala ah xiriirkii dowladda Qatar. sidaan xogta ku helnay waxaa si toos ah isugu xirmay Farmaajo iyo sirdoonka Qatar oo markii hore wakiil ka ahaa Fahad Yaasiin. dood iyo khilaaf tallaabadan ka dhashay ayaa muddo soo jiitamayay ilaa uu soo dejiyay kala furashada xulafadii nabad iyo nolol. xiriirka tooska ah ee Farmaajo iyo Qatar waxaa caawiyay saluug ay labada dhinacba ka qabeen hanaankii uu Fahad u maareeyay qarashaadkii ay dowladda Qatar ku bixin jirtay taageeridda nidaamkii Farmaajo iyo ololihii dib u doorashada ee guuldareysay 15 May 2022. iyo midda labaad oo ah raaligelinta xigtada iyo raadinta xeelad cusub oo siyaasadeed. wararku waxa ay sheegayaan in Farmaajo uu in muddo ahba la kulmayay cadaadis uga imaanaya jilba culusta beeshiisa oo ay ku jiraan ganacsato uu taakula siyaasadeed ka helo, kuwaas oo ku qanciyay in uu haysto fursad uu isaga nadiifin karo eedihii loo heysay maamulkiisa, taas oo ay shardi uga dhigeen in uu iska fogeeyo raggii xulafada la ahaa sida Fahad Yaasiin, Kulanajiis iyo xubno kale. Farmaajo u muuqday mid aragtidaasi la dhacay ayaa la soo warinayaa in uu hadda quuldareynayo in gafafkii iyo garaafooyinkii siyaasadeed ee ka soo gaaray madaxweynkiisii hore uu ku gediyo raggii talada la lahaa, kadibna uu xulafo cusub kasbado isagoo isku ekaysiinaya nin dib u saxaya wixii uu shalay qalday. waxaa muuqata in dhaxalkii 5 sano ee nabad iyo nolol uu ku soo dhamaaday dhaliilo laga kala dhuumanayo sida ay leeyihiin dadka falanqeeya siyaasadda. hase ahaatee si kasta oo ay raggii wada joogay u kala jeesteen, waxaa calaamad su'aal saaran tahay sida ay u suurtageli doonto inuu mid kasta goonidiisa u soo xiro xisaabaadkiisii hore ay dartooda u kala xariiq furteen, taas oo ah arrin aad u adag marka la fiiriyo xeeladda iyo xaalka maanta dalku ku sugan yahay. ugu dambeyntiina baarlamaanka Somaliland maanta feer iyo farlaab ay ilkaas ka daadiyeen xilli ay u muuqato in dhaawac siyaasadeed oo weyn u gaaray maamulka Biixi uu hogaamiyo. golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta la geeyay xasaanad ka xayuubinta xildhibaan Abiib oo shalay ay xireen ciidamada maamulkaasi. mudanayaasha golaha ayaa cod aqlabiyad leh ku diiday xasaanad ka xayuubinta la geeyay golaha, iyadoo sidaasi uu ku buray qorshaha xukuumadda Muuse Biixi ay rabtay in ay golaha uga saarto Abiib. 57 xildhibaan oo saake soo xaadiray golaha ayaa 3 mudane oo kamid ah ogolaadeen in maamuuska xayuubin lagu sameeyo xildhibaan Maxamed Abiib, halka ay diideen 51 mudane. sidoo kale waxaa ka aamusay 2 mudane iyadoo gudoomiyuhuna uusan codayn, waxaana sidaasi ku soo dhamaaday soo jeedintii xiraalinta ee maamuuska xayuubinta xildhibaan Abiib. xildhibaan Abiib ayaa shalay lagu xiray magaalada Hargeysa, ilaa haddana golaha wakiilada arrintan kama bixin faain buuxda marka laga yimaado in uu cod aqlabiyad ku diideen in ninkaas xasaanada laga xayuubiyo. dooda xildhibaanada oo aad u adkayd waxa ay sababtay in feer iyo farlaab iyo gacan ka hadal goobta uu ka dhaco. xildhibaan Barqad Batuun oo kamid ah mudanayaasha u saameynta badan ee baarlamaanka ayaa ka carooday hadal uu yiri xildhibaan ku beela Muuse Biixi, taas oo keentay in gacan ka hadal iyo sidoo kale feer uu meesha ka dhaco, ilkahana ay iska daadiyaan. labada xildhibaan oo mobaylo isku feeray ayaa dhaawacyo fudud soo gaaray sida xogta la helayo ay muujinayso, waxaana kulankii baarlamaanka Somaliland maanta uu ku dhamaaday carqalad iyo caqabad iyo gacan ka hadal sababtay in kulanka degdeg loo soo xiro. xildhibaanka ayaa hadda wuxuu ku xiran yahay xabsiga Mandheera oo u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera, sida ay sheegeen xubno kala duwan oo ka tirsan xisbiyada iyo ururada mucaaradka. xisbigan ayaa mid fac weyn oo ilaa barigii hore ee dowladdiisa bar lagu xiri jiray maxaabiista. maanta in xildhibaan xasaanad uu halkaas lagu xiro waxay ka dhigan tahay awoodda Muuse Biixi iyo sida uu isugu ballaarinayo xukunka maamulka. saaxiibayaal, anaga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. nabadgelyo.